Assalaamu calaykum daawada ku soo dhawaaw mar kale iyo muuqaal kale waa barnaamijkan imtixaanaha saynisyahanada islaamka maantana waxaan qaadaa dhigi doonaa saynisyahanka weyn ee Cabbaas bin Farnaas intaan barnaamijka guda gelin aan ku xasuusiyo halkani waa janaalka iskuulka hoose dhexe sare Al-Anwaar ee barta YouTube-ka fadlan subscribe dhe calaamada gambalaalkana taabo soo dhawaaw mar kale soo dhammaystiran saynisyahankani waa Abul Qaasim Cabbaas bin Farnaas bin Wardaas waxa uu caan ku ahaa Cabbaas bin Farnaas waxa uu ku dhashay magaalada Qordooba ee wadanka Ambalas ama Isbayn sanadkii 810 waxyaabaha ugu waaweyn ee uu qabto waxaa kamid ah intii uu ku guda jiray tijaabooyinkiisa waxa uu isku dayay inuu jajabiyo dhagaxyada kristal taa ay ku guuleysteen masaaridii hore kaliya sidoo kale waxa uu soo hindisay tixane xalqooyin ah oo muujinaya dhaqdhaqaaqa xidigaha iyo meerayaasha waxaa kaloo la sheegaa inuu sameeyay aalad lagu cabiro waqtiga oo loo bixiyay timer waa markaani waa Cabbaas bin Farnaas waxa uu soo hindisay oo ku sagtay noloshiisa oo dhan ku waayo waxa uu bin Farnaas aad ula dhacay awoodda shimbiraha dulay haabaya saacada xiriir ah hawada waxa uu buugiisa ku qoray weydiinaheed asagoo isweydiinay waate aalada bini'aadan uu sameeyay ee ku suurtagelin karta in hawada dulay haabto adigoo garbo shimbiro oo kala leh sanadkii 852 wuxuu ka soo booday minaarada masaajidka weyn ee Jaamicul Qurduba ee magaalada Qordooba ku yaala waxa uuna kaalmeystay dhar si uu hawada ugu dulay haabo sida shimbir oo kale hase yeeshee ma guuleysan dharka uu isticmaalay waxa ay ahayd booska dalladii ugu horeysay caalamka waxa ayna hoos u dhigtay xawaaraha dhicistiisa waxaana soo gaaray dhaawac yar sanadkii 875 isagoo 75 jir ayuu sameeyay isku day kaleeto uu kaga soo booday Victor kadib markuu dhameeyay naqshadeen aalad uu ka sameeyay alwaax baalal iyo xariir xanuuna awood u yeeshay inuu dulhay haabo joog sare amin dhan 10 daqiiqo ka hor inta uusan soo dhicin waxa uu soo xasuustay inuu halmaamay indhayntii ahayd sida uu shimbirku u isticmaalo dibkiisa markuu uu soo dagayo sida aawadeed waxay ahayd inay aaladiisa dib lahaato waxa uu ibn Farnaas dhaawac daran ka soo gaaray dhabarka kadib markuu soo dhacay isku daygii ugu dambeeyay ma awoodin inuu sii wado duulimaadkiisa wuxuuna ku geeriyooday magaalada Qordooba sanadkii 887 waxaana loogu magac daray meelo badan oo caalamka kamid ah taalada ku taala airport-ka weyn ee magaalada Baghdad hotel ku yaala magaalada Tripoli ee wadanka Liibiya sidoo kale waxaa lagu sharfay bilad jeexjeexa ee ku taala dayaxa dushiisa dhammaan magacyada la siiyay waxa ay ahaayeen Cabbaas bin Farnaas waxaa loogu qoray inaan la halmaamin caalim haliyay xidig kamid ah xidigaha sare ee sayniska caalamka islaamka soo maray si gaar ah waxaa loogu qadariyaa dhinaca duulimaadka mahadsanid waa inuu kulan dambe oo xiiso leh wixii commenti ana hoos noogu raab mahadsanidin dhammaantiin